أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. maantay waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed kala hadlo calanka Soomaaliya. Muddo ayaan waxaan shacabka Soomaaliyeed soo bandhignay haddana xisbiga talo ku nool in calanka Soomaaliya aan haysana maantay uu yahay calankow ay uusan samaynin qof Soomaaliya labo aan ka turjumin wax Soomaalinimo saddex ay ku jiraan calaamadiinadii kaleeto afar uu yahay calan maantay aan loo dhamaystirnayn macna calan aan Soomaalidu dhan isku raacsanayn in uu calanka Soomaaliya lahaado. waxaan rabaa marka inaan mar kale ku celiyo dambaalkan si shacabka Soomaaliyeed ay u sii fahmaan loogana taxadaro khataraha ku sugan wadankeena dibna aan u socno taariikhdeena Soomaaliya. marka hore shacabka Soomaaliyeed markii aan soo bandhignay arrinta calanka taariikhdiisa meesha uu ka yimid waxa uu yahay ciidii samaysay dhamaanba shacabka Soomaaliyeed wuxuu u qaybsamay saddex qayb waxay noqotay qayb na taageertay oo raacsan fikirkeena oo ah qaybta waxbaratay dadka mutacalimiinta awood u leh in ay sameeyaan baaritaan awood u leh in ay caalamka fiiriyaan ama taariikhda la socdaan awood u leh inay isweydiiyaan su'aal inay isweydiiyaan waayo dadka Soomaaliyiintooda badani maanta awood uma leh inay xataa su'aal isweydiiyaan dadkii awood u lahaa inay wax su'aalaan war waxaan xagee ka yimaadeen inay yiraahdaan dadkaasi maantay waxay ku jiraan taageerayaasha xisbiga talo ku nool aadayna u badan yihiin maalin ka dambeysana way soo badanayaan qaybtaasi waa ilmo Soomaali oo aaminsan calanka in la bedelo nuguna raacsan khaladaadka calanka ku jira dhibaatooyinka uu leeyahay iyo karaamo darada iyo sharaf darada uu wadankeena ku hayo. qaybta labaadi waa qayb wali aan raacsanayn fikirka talo ku nool oo aan aaminsanayn calanka in la bedelo ku dhagan waxayna ugu dhagan yihiin oo ay aaminsan yihiin in calanka Soomaaliya uu yahay calan qarannimada muujinaya xorriyadda muujinaya waxay la mid waxay ku dhagan yihiin khuraafaadkii iyo waxyaabihii macallimiintii hore ee wadanku ay soo bareen oo dadka ay dhaxal siiyeen oo anigu waan ku jiray macallimiintaas waayo dambigaas waxaan ku leeyahay inaan arday Soomaaliyeed oo maanta qaarkood nool yihiin inaan baro waxaan waxba ka jirin. qaybtaasi iyagu waxaa la yiraahdaa ilmo Soomaalida aan waxba baran oo juhalada oo ayagu kaliya aaminsan ama u arka calanka Soomaaliya in macnaha taariikh cajiib uu leeyahay oo anagu aan sameynay oo qabuuraha loogu jiro dad u dhinta dad saas u arka dadkaasi waa dadka aan rabo inaan la hadlo ama dhambaalkan ku socdo waayo inta na aqbashay waa na aqbashay intaani waa inta waxaa jira group kaleeto oo ilmo Soomaaliyaguna oo aaminsan calanku ayagu in uu jufo ku yahay waxay aaminsan calanku waa reehebel mar hadduu reehebel yahay hadee sax iyo qalad waa lama taabtaan waayo maanta waxaan ognahay wadankeena qabyaaladu meelaha ay geysay waxaa ka mid ah in qofka lagu taageero wax aan sax ahayn wax diinta islaamka soo horjeeda sababta loo taageerayna ay tahay kaliya inuu macnaha qabiilkaagu yahay marka qabiilku ceeb maaha waxa ceeb qabyaalada ceeb marka dad waxaa jira calanka ayagu qabyaaladeeyay oo ka dhigay calan ku abtirsada reer gooniya oo reeraha Soomaaliyeed ilmo Soomaalidaasi waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo maalinta aan ku guuleysano qabyaalada inaan yarayno maalintaas uun inaan gaari doono inaan ka dhaadhicino ama ay arkaan waayo uma jeedi karaan hadda waxaa macnaha ka daboolay fikirka inay arkaan dhibaatooyinka calanka ku jira waxaa ka daboolay qabyaaladii ka dabooshay marka kuwaasi haynoo dambeeyeen waxaan rabaa marka inaan la hadalno haddaan xisbiga talo ku noolahay gruupka dhexe gruupka aaminsan calankani inuu yahay qarannimo in loo soo dhintay inuu sax yahay gruupkaasaan rabnaa inaan la hadlo dhambaalkan ku socda aan bilaabe anagu haddaan xisbiga talo ku noolahay waxaan banaanka keenay dhammaan taariikhda calanka ku saabsan waxaan ka bilownay kow in aan keeno waqtigii Soomaaliya la keenay taariikhdii Soomaaliya la keenay calankeen Soomaaliya oo saxda 1889 soddon iyo saddex sano ka hor intuusan dhalanin
shakhsiga Soomaali maanta ay tiraahdo waa keen macnaha Soomaalida in kamida waa la isku haystaa oo dadna waxay yiraahdaan calanka waxa keenay Maxamed Cawaale Liibaan dadna waxay yiraahdaan calanka waxa keenay Cabdullaahi Ciise labadaba midna wuxuu ka wan yahay 33 sano midna wuxuu ka wan yahay 42 sano waqtiga calanka la keenay intaysan dhalan ka hor ayaa calanka la keenay taariikhdii banaanka keenay waxaan la inkiri karin sababtaas daraadeedina inta wax baratay noo raacay laakiin qofka jaahilkaahi awoodaas ma leh ma fahmi karo waxa isku yihiin marka wuxuu iskaga dhiganaanayaa wixii uu hubay oo uu dadka bulshada ka maqlay iyo iskaga dhiganaanayaa waa qofka jaahilka caadi lagu yaqaan asaga wax kale kama dhaadhacaan waxaan kaloo banaanka soo dhignay oo aan kula doonno bulshadii Soomaaliyeed inaysan jirin in hal ekaatee wax calanka Soomaaliya uu uga turjumo dalkeena Soomaaliya macnaha taariikhdeena diinteena nothing in hal ekaatee qofka ugu badan wuxuu yiraahdaa ama dadkaas aan la hadlay waxay yiraahdaan waxay ka turjuntaa shanta Soomaaliya shangeeska ama waxaan xidigta loo baray buluuguna wuxuu ka turjumaa cirka iyo badda waxa uu ka turjumaa well that is completely false that's non-starter macnaha qof aqli leh saas inuu ku fakaro waxa weeyaan waa arin laga fiican yahay waxay la mid tahay ilmaha yararka markay dhashaan oo ay hooyadoodii aabahood weydiiyaan ilmuhu intee ka soo baxeen waxa la yiraahdaa xudunta ka soo baxeen waxa la mid tahay marka qof hadaad aaminsan tahay caalamku inuu saa u taagan yahay xididka shangeeska shanta Soomaaliya u taagan tahay waxa la mid ah waxa la mid tahay qof weyn oo wali aaminsan in ilmuhu ay xudunta ka soo baxaan way wax kale lagu tilmaamo jiraan macnaha halkaas uu gaarsan yahay jaahilnimada haddii aaminsan sidoo kale in loo dhintay qof u dhintay ma jiro calanka ina Soomaali calanka looma dhimo haddaad aaminsan tahay qof inuu dhinto ama aad taqaan qof dhintana qofkii calankaas ama maradaas u dhintay daraadeed naaru ku jira waa ehlu naar waa xaqiiqdi haddaad u dhimatay haddii qof uu u dhintay calanka Soomaaliya daraadiis hadduu u dhintay qofkaas naaru ku jira marka rajee ducaysana inuusan qof adiga aad taqaano ama aad ka naxdo ama taariikh aad isku leedahay ama awowga inuusan u dhimanin calanka Soomaaliya daraadiis inkastoo taariikhan calanka Soomaaliya qofna uma dhiman waana lagu qasb dadka Soomaaliyeed markay dagaalamayeen waxay u dagaalameen in ay dadkii ku soo duulay Europeankii Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo wixii la mid ah Portugiiska iyo wixii la mid ah inay wadankooda ka eriyadaan waana ka eriyadeen ugu dambeyntii saasa loo dagaalamay maahana calan looma dagaalamin marka qofka Soomaaliga ah aaminsan calanka loo dagaalamay ama dad qabri ugu jira ama wiyaal u dhintay waa qof aaminsan ilmuhu xudunta ka soo baxaan waxa kaloon banaanka keenay macnaha taas waa taariikhdii macnaha ama ku turjumaanka Soomaaliya ku turjumay mid kale waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed aad fahamtaan waxa shangeeska la yiraahdo waxay jireen kumanaan sano ka hor intii Soomaaliya aysan jirin pharaohs ay ka soo bilaabatay waqtigii Masar ka bilaabatay September meesha la yiraahdo waxa isticmaala dad sixirka isticmaala shangeesku wuxuu u taagan yahay afar diimood Kabbalah oo diinta sixirka neo-pagans oo dadka macnaha waxyaabaha dhagaxa iyo qoraxda iyo waxaas caabuda Wiccas oo iyaduna sixira iyo Satanism oo ah dadka shaydaanka caabuda waxa laga yaabaa in isweydiiso su'aalaha waxay ku jirtaa bahalka wadanka la yiraahdo Algeria Pakistan Turkey meelahaas ku jirtaa waxaan ma inaan xusuusiyo taariikhda ugu horeysa ee anaga aan aragnay wadan Islaam ah ama Islaamku u badan yahay xidigtaas ay ka muuqato shangeesku ka muuqdo waa 1923 Turkiina waxaana meesha dhigay oo ku soo daray Kemal Atatürk ninkii Yuhuudka ahaa aad wada garanaysaan saxiixay macnaha mamnuucay xijaab in la qaato mamnuucay in diinta Islaamka lagu dhaqmo wadanka dhinaca kale u gadi waa laga guuleystay asagayna keensadeen oo ay ku qasbeen inuu wadanka u maamulo maalintaas calanka la bedelay oo laga dhigay macnaha bisha iyo shangeeska laga dhigay shangeeskana waxa looga dhigay de awoodda Europeanka ayaga guuleysteen ayaga shangeeska wateen saasoo ku yimid taariikhdu saasoo ku timid wadamada kalena hadda waa fahmaysaa saan anagu ugu dayno maanta waxaad arkaysaa masaajido oo shangeesku ka taagan yahay qofka haddaad weydiiso muxuu uga taagan yahay calaamad islaam ah masaajidkii ilaahay lagu caabudayay in shangees laga dul taago bal culimada aanu ma rabo hadda inaan subjectigaas hadda aan taabto waqtigeedii wali lama gaarin aan ka hadli lahayn laakiin adigu weydii culimada waxa tiraa muxuu ka taagan yahay diintee qabta ma calaamad diineeda bisha la isku haystaa inay meesha ku taaliin kale marka weydii marka waa sidaas kama turjunto shanta Soomaaliya shan maha Soomaaliya hal weey
taariikhdaasina waa taas waxaan kaloo marka bannaanka soo dhignay wadamada nagaga horriyo isticmaal Honduras oo aan keenay calaamadahoodii iyo calankoodii baraha bulshada aan soo dhignay dadku nala arkeen Chile Mareykanka oo dhowr macnaha state isticmaalaan iyo state kasta oo Mareykanka calankiisu waa calanka Soomaaliya ku state kasta oo Mareykanka calankiisu waa calanka Soomaaliya waxaan rabaa inaad fahamtid taas Mareykanka calankiisa markaa fiirisid waa xidigo shangees iyo blue shangees kasta iyo blue kasta waxay u taagan tahay gobol waa la isu keenay inta gobol ka tirsan yahay konton iyo dhowr state kasta calanka Soomaaliya kala wata waa la isku daray markaas waxa lagu sameeyay stripeska oo ah unionka macnaha isku xirnaanshaha oo ah guduud iyo cadaan so waa iska caddahay aan u laabana marka wadankii annaga noo keenay macnaha taariikh ahaan wadankii noo keenay ma isticmaala maanta ha calanka aad haysato maanta ee Soomaaliyeed waa astaanta qaranka ee wadanka Talyaaniga hadda Google garee Italian coat of arms marka Google gareys waxa ku soo baxay shangeeska oo wax yaro blue ay ku jiraan blue khafiif oo ku jiro exactly Italian coat of arms waxaad Google gareysaa Italian Ministry of Defense wasaaradda difaaca ee dalka Talyaaniga waa calanka Soomaaliga exactly meeshii yaala kaliya waxay ku dareen dhinaca waxay ku dareen ciidan kasta calaamadiisii mid ankar loogu daray macnaha baruusin loogu daray midba calaamadii uu lahaa booliiska national guardka militariga ay afarta dhinac uga dhigteen laakiin calanka guud ee wasaaradda difaaca ee Talyaanigu waa calanka Soomaaliya waana meesha uu ka yimid calanku waxaan kaloo rabaa inaad isweydiisaan national teamka ciyaaraha kubadda cagta ee Talyaanigu marka ay u soo baxaan macnaha isreebka meesha ugu dambeysay markay yimaadaan midabkay ku ciyaaraan waxay ku ciyaaraan midabka calanka Soomaaliya cadaan iyo blue fiirani cadaan iyo blue ku ciyaaraan markasta xaguu ka yimid marka taariikh ahaan yaa iskale sababtay Soomaaliya loogu adkay waxa Soomaaliya loo siiyay in la aqoonsado ama la fahmo ama Talyaanigu uu markasta u jeedo inay calaamadoodii wataan sida Ingiriisku uu calaamadihiisa macalinkiisa uga muuqdo New Zealand Australia iyo wadamada kaleeto ee asagu uu maantay macnaha Jazaa'irka yararka ah uu macnaha wali ka tirsan ama Commonwealth ama si aan toosayn u gumaysto Somaliland calankeedii markii Talyaanigu joogo markii Ingiriisku jooga haddaad Google gareysood baarto waxaa ku dhex yaala Union Jack wax la dhaho calankaas ku dhex yaala wali ina Soomaali marka hurdada ka toos meeshaan in la kaatay calan adiga aad samaysatay ama qof Soomaali uu sameeyay ama diin islaam ka turjuma ama taariikhdeena ka turjuma ama wax in la kaatay Soomaaliland ka turjumay meesha ma yaal ومركان عالم كلي كهالين تاريخ دي سمانت وعدا بدن كسوري waxa kaloo ka sii daran qof Soomaaliya oo maanta nagala doodi kara xisbiga talkuun oo hadana ma jiro almost macnaha ku dhawaan hal sano iyo baraan wadnaa ololahan dad badan oo soo raacay dad badan fikri especially in alla inta Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya oo mutacallim wax bartay waa fahamsay maanta calanka Soomaaliya inuu yahay wax European ku ay keeneen marka waxa haray ilmo Soomaaliga ama aaminsan in uu ayaga ku qabiil yahay ama ilmo Soomaaliga aaminsan hadii calanku meesha ka baxo ribada waa dhamaatay imagine adiga qiyaas qof Soomaaliya maanta oo oranaya calanka hadaan bedelo xurmadu waa dhamaatay war hal dil ninka yira calanka hala bedelo imagine this that is how low that is how uneducated how illiterate how Soomaalidu ay tahay macnaha wax barasho la'aanta iyo jahligu meeshaas dadka geeyay hase yeeshee taas la yaab ma laho waxaan isku ognahay haddaan Soomaalinahay waa fahamsanahay in jahligu farihi ka batay hadduu jahligu faraha ka badanin macnaha nin oo macnaha caalim ah oo diinta islaamka soo bartay ama jaamacad ka soo baxay nin qabiil kuma raayo because waxyaabaha aqliga binaadamka diiday waxa kamid ah why would I go universities maxaan jaamacad u aadaniga maxaan diinta islaamka u bartay maxaan intaas oo xushmad haddaan nin qabyaalad ku taageerayo nin jaahila oo aniga qabiilkayga haddaan taageerayo ama aan diinta islaamka macnaha markuu ka baxaan ku taageerayo waayaan jaamacad u aad why bother intaas sano wax barashada mid kale isweydii kuwiina wax bartay ama diinta islaamka bartay ama xataa cilmiga adduunka bartay haba iska liitay maxaa jaamacad u aad wax barasho maxaad u aad haddaad ba qabyaalad wax ku shaqeynaysid su'aashaas isweydii ha iska dhamayna lacagta
waqtigana ha iska dilin because aayatiinkaagu ama mustaqbalkaagu waa inaad qof qabyaalad ku taageertid so therefore iskuulka iyo waxbarashada aad baranaysid iyo diinta aad barato wax dhan khasaaro marka ilmo Soomaaliyo kuwiina wax aan baran oo laakiin aan aaminsanayn inuu calanku idinku qabiil yahay waxaan rabaa inaan ka dhaadhicno war calanka in la bedelo ma aha xornimada lumay calanka in la bedelo waa sharaf iyo karaamo waa cizi waa wanaag waa inaan samaysano waxaan anagu leenahay anagu soo fakarnaa haddaan Soomaalina ka turjuma diinteena wadamadaas westernka iyo caalamka intiisa kala arag Hindiya waxa ugu tala calaamadii diintooda the wheel of fortune wadan kasta waxa ugu tala calaamadii intooda badan wadamada waxa ugu tala intaan macnaha gumeystii ama dadkii ku soo duula markaas intaysan u samayn oo sidoo kale to aan loo adeegsan dad ayagu because anaga waxaan loo adeegsaday dad Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Boortaqiiska waxaas intay tababarteen annaga aad moodayso inay Soomaali yihiin laakiin aan Soomaali shaqo ku lahayn aad moodayso inay Islaam yihiin laakiin Islaam aan shaqo ku lahayn dadkaasana loo adeegsaday dadkaas taariikhdeena tirtiray waxaan aan maanta haynana noo dhoodhoobay dadkaas ay yiri calanad aan idin sameeyay calankan ayuu ma sameeyay waa loo dhiib waxaan marka inaad ka fikirtaan arrintaasi oo aad ku baraarugtaan waxa maantay aan ka haysano taariikhdeena waa yartay isweydii bal adiga taalada sayidka meesha ku taala maxaa ku dhex yaal maxaa ku dugan yaa ogaa markii la dhisay ma laga yaabaa inuu sixir noogu dugan yahay ma laga yaabaa lafii gaaladu meesha ku dhintay inay ku dugan yihiin because we know anaga taariikh ahaan waxaan soo helnaa haddaan reertal ku noolnahay ninka la yiraahdo ninka astaanta qaranka sameeyey ama lacagtii commissionka ku bixiyey wuxuu ku dugan yahay Jowhar webiga Jowhar qarkiisu ku dugan yahay magaalada Jowhar webiga Shabeelle qarkeedu webiga qarkiisu ku dugan yahay coordinate-keena haynaa exactly pinpoint meesha ku dugan yahay dhagaxtuur yaa ogaa markii la dhisay maxaa hoos uga dugan masiixira ku dugan Axmed Gurey daldalzilka daason taalooyinkaas yaa noo dhisay yaa samsiyadaas meesha noo saaray ونمك إيطاليان هو تببري أنا ماليني إسلاميين لكن أنا إسلام هين imagine this هذه كيف فكر مانته ما أقولش هالسنة بودن كابينو يال وعلى جيابا نينك أكو قبيل كي هاي معناها نينك السنة كماشة اللي جاي إنه كفر حسين يعني واي قبيلة ذا فريه معناها قبيلة ذا نتشي لكن أنت كلته مركا لقى صار سيدا عالم كو كلته الدنيا من سين وأيه كو قبيل يعني dad aaminsan inuu taala kasta marka la soo qaado dad aaminsan ayaga inay ku qabiilta oo xogaa isbedaya macnaha taariikhdaadii weeyo waa qabyaaladu wax kala ma waxaan rabaa marka inaad ku baraarugtaan calanka aan maanta haysano waa calan shaydaan waxaan kaloo rabaa inaan kugu daro heesta calanka Soomaaliya waa cibaado meesha aragti u qaad saar samee haddaad bixidigu yeeranayso oo leedahay shangeeskaasi ha nacaawiyo وعباد وحالا ميدا هيست لوغو هيسو مركا انجليش كتاي انجليش كمركا يتهو بوني بلو فلاج لوغو هيسو والا ميدكي ازاقنا حدك تالا بريا ميدا اسبانيش كا اي هندورس اي تشيلي اي قادان ايون والا ميد استريا فولخيدا سوليتاريا استريا فولخيدا سوليتاريا و exactly translation كا كان سوماليا يكا انجليش كا ولسكو جيو think about it مركا كفكر ماشي أنا وحا إنا Soomaaliya ولا سو taagantahay calankaygu war calankaagi ma bahaysatid bacalan waa astaanta qaranka Talyaaniga waxa calanka ku waadi marka hadii lagu tusay calankii adigu inaadan sameeyno oo ka horeeyay labada nin oo loo tiiriyo ama Cabdullaahi Ciise dheh ila dada ku dooda ama xaawal liibande labada nin ba calanku waa ka horeeyay waana cadeyno banaanka keen wax qarsoon ma taariikhdiya taal waliba hadii la dhihi lahaa tani waa gacan ku samays wuxuu yaala Liibiya oo laba wadan Tripolitania Cyrenaica exactly kan annaga aan haysano oo kale waayo wadamo waxay Talyaanigu gumeysana meel kasta Talyaanigu tago gumeysi aan dhihi meel kasta Talyaanigu dagaal ku soo qaaday ama uu dagaal ka waday calankaas yaal buluugaas xidigta dhexda kule wuxuu calankii wasaaradda difaaca wuxuu ahaa astaantoodii qaranka waa astaantoodii marka haddaan taas banaanka soo dhignay haddii intaas oo wadan kula isticmaashad ogtahay haddii Talyaanigii laftirkiisii markaas dagaal kula jiro dadkan soo tababartay calankay sameeyay la leeyahay oo meesha keensaday asagii u haysta maanta ilaa maanta u isticmaalay haddii Chile ay haysato
oo 1927 iyo Mareykanku 26 iyo 1810 iyo 1901 kala samaystay. waxaan ka wadaa Florida State macnaha Mareykanka stateediisa iyo Honduras Partido Nacional de Honduras. haddii intaas oo dhan samaysteen ina Soomaali waxa kalood raadinaysa waa maxay? ma dhigaha laadahay mise wax weeyaan waa ilmuhu dunta ka soo baxay markii yara ilmaha yarka lagu sheekay waayo mar hadii lagu yiro Soomaaliya iska leh hebelaa sameeyay wax su'aal ah iska weydiin. horumarka bulsho ay leedahay ama qof bini aadan uu gaaro waxa kow ka ah inaad su'aal isweydii kartid. wax markii lagu keen hadaysan diin ahayn ha u qaadanin face value macnaha iska laqin weydii waxaan war xagee ka yimaadeen maruna ma beena yaa keenay ila wuxuu diin ma aha. haddii diin yihiin yes don't question ilaahay wixigiisa su'aal iska weydii karo laakiin wax kale haddii yihiin waxa qalada haddii lagu keen waliba xujo saano kale haddii lagu keen lagu yiraahdo war waxaan waa qaldan yihiin cadaynteena waa tanaa waxa qalada inaad ku dhaganaato. ha u dabaaldegin calanka adigoo calanka wata salaada dukan waayo waxay la mid tahay adoo mactabka xataa crosska macnaha mactabka iyo shangeeska waxaa liita shangeeska meel kasta ku yaala dadka musaxiriinta oo dhan aa wada wata. maxaa China oo communista uu shan xidigood ugu wataa calankiisu iyo xidig weyn? maxaa Russia oo iyaduna wadan macnaha communist ahaa jiray Kremlinka meesha ugu koraysa ay u surantahay xidigta guduudka Red Star? maxaa Mareykanku u haystaa? maxaa caalamka oo dhan xidigta wada siiyay? think about it. ka fikiradi waqaacido la dejiyo oo loogu talagalay dadka diimaha in looga saaro calaamadii looga dhigo. anagana maanta waxaan marinaa masaajidadeena ku dhigsan. think about that. shangees meel uu ka yimidaan la aqoon waqtigii rasuulka waqtigii asxaabta iyo khulafaa raashidiinta la yaqaano waqtiguu bilowdo qarnigii hadda la soo dhaafay soo bilowday taariikhdiisuba masaajidada kugu taal oo lagu xardhayo meel kasta masaajid kasta yana dhihin masaajidada qaar ka mid ah Soomaalida iyo kuwa macnaha meel kaleba masaajidka lagu xardhayo illa westernki ay nagu qasbeen calaamadana loo yaqaan because Turkiyay macnaha u sheegay macnaha ama maadaama ay ku guuleysteen Turkiga awoodii ugu xoog badnayd islaamka dagaalkii labada adduunka in ay jabiyaan bedelaan dastuurkoodii ku qasbaan diinta islaamka banaanka in la dhigo ku qasbaan dawladda diinta in la kala saaro xijaabka in la mamnuuco maxkamadaha in laga bedelo calankana inay bedelaan because calanka Turki waxa la bedelay 1923 wuxuu ahaa calan ay ka muuqato astaan ayagu ay leeyihiin waa bedeleen kana loo bedelay markaas lagu soo daray shangeeska. brother marka ina Soomaali hurdada ka kac meesha calanku ma haysatid inta laga bedelayo ha ku dukanin salaada gurigaagana ha suri waayo wax wala shaytaan waa calaamad shaytaan. haddii marka adigu aad diido oo aad tahay ina Soomaali aan caqli iyo cilmi lahayn at least waxaad ku qanacdaa maadaama Ilaahay uusan ku dhigin guryaha dhigo ku duko banaanka iska dhig. marka dukanayso banaanka iska dhig. haddaad ciidan tahay iska fuji haddii calankan meel kale uu kugu jiro iska fujiyo meel dhigo at least haddaanan badaynaynba laakiin ha ku dukan. masaajidada shangeeskaasi uu saaran yahana haddaysan duruufta kugu qasbanin ha ku dukan. waayo diin maaha waa calaamad aad ogtahay maanta waxay ka timid baaritaan ku samee 4 diinood ay u taagan tahay. waxaan rabaa inaan ku daro intaas waqtigii diinta macnaha waxa ka soo bilaabatay saan aaminsanahay haddaan qaldanayn 320 sano nabi ciise markii Ilaahay uu kor u qaaday kadib ayagu waa dhintu yiraahdaan laakiin markii Ilaahay kor u qaaday kadib ayaa waxa lagu soo daray xidigta diinta Christianity macnaha calaamadaheeda lagu daray. waxay u taagneed marka markii nabi ciise yiraahdo waa la daldalay labada calaacalo labadii nabar oo ku dhacay labada lugood iyo meeshan docda ama feerta oo looga dhiftay waran say yiraahdaan shantaasi u taagneed shanta geesaasi ugu taagneed.
laakiin markay ogaadeen baaritaan ku ogaadeen waxaan inay sixroolayaal iyo ay isticmaalaan groupkii kasoo baxay Faransiiska oo intooda badan macnaha Europe ay kasoo baxeen laakiin Faransiiska ugu xoog badnaayeen oo soo weerari jiray Baytul Qudus oo la yiraahdo magac ay leeyihiin Christianity-ga la yiraahdo night of waxa la yiraahdaa night guard something like that ayaa baaritaan ku sameeyay markay ogaadeen معناها markay bilaabayeen waxa waa dagaalkii waxa lagu yiraahdaa westernka waxa lagu dhahaa inquisition ka lagu dhahaa macnaha dagaalkii oo ay ku sifeynayeen diinta markaas ay ka saareen markaas laga saaray Shingiiska inuu noqdo calaamad Christianity way leedahay laakiin kuwii shaydaanka caabuday wali waa ku haray maantadan la joogo Turkey hadii waqtiga la gaaro Christianka marka la gaaro ama Christmas marka la gaaro macnaha markay u dabaaldegayaan diintooda حديقة واسع ورتان أيضا جبنا كل أي معناها عابدات مش أصول كتان وعلامة دي ولي إلا ما أنت قارع مثل مرك هذه imagine this ننو كل عبادة سنة يا وحديقتان وكل عبادة سنة واسق علامة دي سي دينية دي وتاي هذه كانوا صلاة معناها أما جوري كوية لا عالم كي يكون دقيقة أما قربها كوضتها أما حد شنجيس كي وضتها وكل دكاني very sad waxaan idinkaga tegayaa sidaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh